Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Isku soo noqosho wanaagsan. Waxaan ka hadlaynaa casharadii taxanaha inoo ahaa ocular anatomy and physiology. Insha Allah maanta waxaan ka hadlaynaa cornea ayaan ka hadlaynaa. Outer layer of isha isha qaybteeda koowaad cornea ayaan maanta ka hadlaynaa insha Allah hadii la yiraahdo. Corneada magacaas Soomaali ahaan markaan u isticmaalayno cornea waxaa waa bikaaco waa. Cornea waxay ku jirtaa avascular waa xidid dhan ma laha. Shaqooyinka noo qabato kow waa protection oo outer coat ay ku jirtaa protection. Waxay kaloo noo qabataa opticalka oo aragtida waa meesha ugu horeyso oo iftiinka soo gala oo jebinayso shaqooyinka noo qabato. So marka corneada waxay leedahay 5 layer ay leedahay. Waxay leedahay epithelium, bone marrow layer, stroma, descent iyo endothelium ay leedahay. So marka corneada dimension ahaan anterior surface keeda waa vertical oo waxay gaaray 11.7 millimeter, horizontal ahaan waxay gaaray 10.6 millimeter. Posterior surface keeda waa both waxaa waaye anterior vertical iyo horizontal both keeda waxaa 11.7. Culays ahaantii waxay gaartaa centralka 0.52 millimeter oo centralka peripheralkan waa 0.767 ay gaartaa millimeter. Peripheralkan waxay u tahay more flatter. Surface-ka ay ku fadhiisan waa 1.73 centimeter square waa. Radial curvature-keedana waa anterior 7.8 millimeter, posterior ahaan wuxuu gaaraa 6.5 millimeter waa radial curvature-ka. So marka shanta layer aan hadda ka hadlaynaa, layerka ugu horeeya waxaa loo yaqaanaa epithelium layer. Waa stratified waa squamous waa non-keratinized wuxuuna ku xiran yahay goob conjunctiva ayuu ku xiran yahay. Mana laha goblet cells. Asi ayaa wuxuu leeyahay 5 ilaa 6 layer ayuu leeyahay. Layerkani hadduu lacala dhaawac gaaro wuxuu ability u leeyahay inuu sameeyo generation. Shanta layer mid ka mid waxaa loo yaqaanaa basal layer. Wuxuu leeyahay arrangement in the basal manner, germinative layer, a glomerule with oval nucleus. Sidoo kale wing oo umbrella cells. Waa layerskan epitheliumka layerskiisa kasii farcamo waxaa polyhedral iyo convex anteriorly. Waxaa kaloo jiro basal lamina. Basal lamina waa 2 layer oo sigilina superficial lamina lacuna iyo deep lamina dense. Waxaa kaloo jiro surface cells. Surface cells waa 2 to 3 layer waa oo polyhedral waa. Saas soo sheegnay hadduu lacala dhaawac dhaco epitheliumka hadduu ku dhaco generation ayuu sameynaya. Haddaan u imaano layerka labaad waxaa loo yaqaanaa bone marrow layer. Bone marrow layer wuxuu ku jira anterior limited layer wuxuuna gaaraa 8 ilaa 14 waa acellular waa. Xidid malaha acellular waa homogeneous waa 5 geesle waa. soo kalena kan generation ma sameeyo hadduu dhaawac gaaro no generation waa. waxaana ka dhaca normal physiological condition ka dhaca oo corneal edema iyo diastrophy ka dhacaan. Stromaha layerkan waa biggest layer waa layerka ugu weyn waa, haddana waa thickest layer waa layerka ugu culus waa. Regular ahaan wuxuu gaaraa 500 waa arrangement lamina waxaana ku jiro collagen bundles ay ku jiro waxayna ku xiran yihiin keratocystka u dhaxeeya between lamina waa kasoo hadla anterior lamina iyo posterior lamina. Keratocystkani waxaa soo saara collagen iyo prostaglandin kuwaasoo inta lagu guda jiro during development qofka markuu development oo koritaan markuu sameynayo la soo saaraa. Layerka afraad waxaa loo yaqaanaa descent membrane waa waxaa laga helaa posterior limited layer wuxuu gaaraa 2.2 ilaa 4.5 waa strong sheet or resistance waa. Kii haddaa no generation waa kan laakiin generation ayuu sameeyaa. Anteriorga waa oldest oo qofka markuu 5 month gaaro ayuu development sameynaya. Laakiin kan 2 to 3 waa posteriorgiisa oo qofka markuu dhashaba horo at the birth waa qofka markuu saan u dhasho. Endotheliumka waa layerka ugu dambeeya waa single layer waa hexagonal waa 6 geesle waa. soo kalena waa cuboidal cells waa. Anatomical ahaan corneada intaas waa. Physiological ahaan physiology of the corneada waxay noo sameysaa nutrition and metabolism ay noo sameysaa. Cornea saas soo sheegnay waa acellular laakiin nutritionka inta badan nafaqa ahaan waxay ka heshaa limbiska ay ka heshaa
capillaries ahaan capillaries limbus capillaries ay ka heshaa xididada oo limbuska. sidoo kale air hawaday ka qaadataa, tear film ay ka qaadataa, aqueous humor ay ka qaadataa. sidoo kale corneada saan soo sheegnay cellular waana iftiinka isha markay saan usoo galo waa most reflective power oo 43 ilaa 42 ayaa la qiyaasaa. cashirkeena maanta waxaan ka hadlaynay corneal iyo corneada anatomy physiology ahaan waan idinkaga mahad celinaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.